Gudoomiyaha maamulka magaalada Guriceel Anas Cabdi Macalin oo la hadlay wariyaasha ayaa maanta ka hadlay xaaladda guud ee magaaladaasi kadib markii ay isaga baxeen xoogagga taabacsan Ahlusunna wal Jamaaca. Ugu horeyn, Anas Cabdi ayaa ku dhawaaqay in la soo afjaray howlgalkii maalmaha badan qaatay ee ka socday magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya. Sidoo kale, gudoomiyaha ayaa shaaciyay in haatan ay amniga si wada jir ah u sugayaan ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka Galmudug ee dagaalka ku qaaday Ahlusunna. Anas Cabdi Macalin oo hadalkiisa sii wata ayaa fariin culus u diray shacabka Guriceel waxaana ugu baaqay inay dib ugu soo noqdaan guryahooda maadaama ciidamada xoogga dalka iyo kuwa darwiishta Galmudug ay si buuxda ula wareegeen gacan ku haynta magaalada. Haddaba waa kan gudoomiye Anas oo arrimahaasi ka hadlay. reer Guriceel waxaan rabaa halkaan maanta inaan uga baaqno dadkii ka barakacay magaaladan oo banaanka iyo qorraxda iyo ciradda joogay inay ku soo laabtaan guryahoodii in muxuu ahaay ay magaaladii tahay hadda xaaladeedu mid degan in ay gacanta amniga magaalada ay gacanta ku hayaan ciidamada ammaanka ee dowladda Galmudug ayna tahay amnigu uu yahay mid sugan. waxaan rabaa marka inaan bulshadii la barakacshay ee guryahooda dhufeesyada laga qotay ee la dhibaateeyay inaan ugu baaqno inay guryahooda dib ugu soo laabtaan. taas waxaan rabnaa inaan gaarsiino fariintaas bulshada reer Guriceel. waxaan kaloo rabaa inaan halkan fariin uga diro dhammaan hay'adaha ka howlgala degmadan Guriceel iyo dhammaan Galmudug inay caawiyaan dadka muddada 20 dhowrka bari ah ku dhibaataysnaay banaanka dhaxanta iyo roobka hooy la'aanta cunto la'aanta ay dhibaatadu ku haysatay in si degdeg ah ay uga jawaabaan inaysan jirin cudurdaar ah wada xiran ma jirto. annaga ayaa u dabaanad qaadayna amnigooda iyo wadooyinka iyo meeshii ay mari lahayn inaan u fududayna haddii Ilaahay yiraahdo. marka waxaan rabnaa in sidii madaxweynuhu ugu baaqay in lala gaaro dadkaas caawinaad degdeg ah in laga jawaabo baahiyaha taagan. runtii dadku waa barakaceen waxaa laga yaabaa inaysan awoodin dad badan oo kamid ah inay guryahoodii ku soo laabtaan. marka in dadkaas la caawiyo waxaan rabnaa inaan si degdeg ugu baaqno. xaaladuna hadda waa mid degan magaalada amnigeeda iyo muxuu ahaay isku socodkeedana waa uu furan yahay. Xaaladda magaalada Guriceel ayaa haatan ah mid degan waxaana maanta gudaha u galay ciidamada huwanta ee isku ballaariyay degmada Guriceel oo dhacda bartamaha Soomaaliya. si kastaba ciidamada Ahlusunna ayaa iyaguna ku sugan deegaanka Golwiil oo hoos taga magaalada halkaas oo ay markaa ka samaysteen fariisimo cusub iyo saldhigyo ciidan.